waxay aheeday in ay soo gabaad ka dhigteen kuwii faldambiyeedkaas geystay oo ay kamid ahaayeen Cabdalla Suudaan iyo mataqaanaa ninkii la dhihi jiray Saalax Ali Nabxaan waxa la dhihi jiray ma joogaana la dhihi jiray inay 4 nin ahaayeen aan jecelahay runtii Cabdalla Fasuul meelaha ay ku dhinteen Baraawe iyo magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen iidoo markaas la inkiraayo oo dalka Soomaaliya Mareykanku oo leeyahay dawladda adduunyada ugu awoodda badneed ay leedahay Soomaaliya joogan dadkaas dimbilayaasha gabaad hasiina wala inkiraayay dad baa guryahoora ku haayay dad baa qarinayay dad baa ummadda Soomaaliyeed dhaga ka raadinaya dadkaas inay argagixisada lacagta laga helayo dad mar walba ma taqaana ka dhiganayay xoohay faa'iido ka raadinayay wala ogtaa shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan ay ku gaartay maanta waxaad ogtaa in waaga gantaaladii ay socdaan oo dad ka hiray oo iyagii ay keeneen oo iyagu waliba ay u ahaayeen hormoodkii dalka ku soo dhaweeyay inay maanta tii ugu dambeysay oo bariire iyo ka dhacaysa jilib waa wixii ukumanka ay ka tageen ayaa ma taqaana dhibaatadaas shacabka Soomaaliyeed u keenay maanta marka waxyaabaha waxa la yiri dawladdu ka il dheer hadii dawladda marka waxay arkayso la arki waay oo ay shacabku yiraahdaan dawladda anaga hogaamayna anaga ka aragti dheer waa khaladaadka wiligeer ay Soomaaliya shacabka Soomaaliya ay gali jireen shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa cid ay doorteen oo ay markaas ay u dhiibteen talada inay waxyaabaha ay sheegayaan inay ka tusaale qaataan arintaas ayada waxaan leenahay marka dawladdu way ku saxataa go'aankeeda waa soo dhaweynayna shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa sidaas oo kale inay soo dhaweeyaan maxaa yeelay dawladdu go'aan siyaasiya inay ka qaadato arrimahaas oo kale xaq ay u leedahay oo waxay dawlad ku tahay hadday u aragto masiirka dawladnimada iyo qarannimada iyo ummadda Soomaaliyeed horumarkeedii inuu meeshaas ku jiro waa sax inay ka qaadato go'aan marka anaga haddii wax kale la iska daayo waxaan ugu filno kaliya dhowr arrimood in la soo qaato kuwa mid hore waxa weeye dawladdu capacity uma laha Soomaaliya maanta inay urur mucaarada oo dawladda diriska dagaalkooda inay gabaad siiso kuma dhiira karto mana aha mid sax ah midda labaad waxa weeye Soomaaliya waxa la rabaa in lagu xisaabtamo faa'iido xasa qasaara dawladdu waxay hore u keentay dawladda Itoobiya ka soo fasaxday xabsiye dad ku jiray muddo dheer oo islaahay hadaan qaldanayn 114 qofood ay ahaayeen hadeerna waxaan maqshiisana inay qaar kale hadana ay soo wado taasoo waxa keentay isla shaqeynaa keentay heshiisa keenay isfahamaa keenay dawladda Itoobiya iyo midda Soomaaliya dhexmaray taas marka waxay sababi kartaa inay wixii hore qaldamayna sixi karto wax hadda soo socdana ay wanaaji karto haddii marka caqabad looga dhigo hal qof oo mucaarad ku ah dawladda Itoobiya oo wax burburinayo wax qaribay inaan anagu haysano arintaas marka wax la isbarbar dhigi kara ma ahan waxaan qiraynaa oo maaragtay aan ka cabsanayno ku dhiiranayna dawladda mowqifkooda ay ka qaadatay qalbi dhagax inuu sax yahay mid lagu badbaadina ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda dawladnimada inuu sax ku yahay inuu nabadgelyada uu ku yahay muxuu ahay qatar dawladda ayada noo sheegtay saasaan u qaadanayna maxay nin nabadgelyo ka shaqeynaa man wax burburin ka shaqeynayo ujeeda inta lafteedan aaminsanahay inuu san u joogin nabadgelyo nin nabadgelyana ma uusan ahayn